boqor Cismaan aw Maxamuud Buurmadow oo kamida boqorada ugu caasan Somaliland oo hotel guuleed ee magaalada Hargeysa waraysi kooban ku siiyay telefishinka Sahan ayaa ugu horeyn isdul taagay arinta muranka badani ka taagan yahay ee la xidhiidha gudiga doorashooyinka Somaliland. Buurmadow waxa uu si weyn uga digay in gudigaasi cusub ay xukuumaddu farageliso amaba shakhsiyaad kale. Wuxuu sheegay in aanu marnaba deegaankoogu aqbalaynin in arintaasi la kala diro gudiga cusub, isla markaana si gaar ah farta loogu fiiqo Cabdirashiid Riyaraac oo gudigaasi kamida. Riyaraac wuxuu maray iyo gudidiisu waxay mareen Riyaraac qura maaha, waxay mareen dhammaan qaanuunkii sharciga ee shakhsi muwaadin lagu dooran jiray, waana institution jira oo sharciya oo fadhiya halka fadhiya weey. afar oday oo mandate cid alla cid ay ka haystaan jirin, baan beelahooda xataa mandate ka haysan oo inta iska riyoodeen hadal iska yiri haday xukuumaddu qaadato maanta arrinka qaadato way ku debacdo ay taado waxa weeye afar oday inta biritan waxay imanaysaa afar oday oo beeshayda intaan soo kaxaysto inaan baarlamaanka la baabiyo golaha guurtiisa la baabiyo madaxweynuhu hay iscaasilo dabadna saas ay noqoto burburkii Somaliland. waa sharci daro, waa nidaam daro, waa ixtiraam daro waxa kan laga hadlaya. qaabka loo weerarayaana waxa weeye qaab beelaysan oo reeraysan ayaan u arkaa waxna kuma hagaagayaan. waxa la wax ka soconayaana ma jirto. waxaan qabaa inay doorashadii waqtigeediina ka luminayaan, waxaan qabaa inay markii hore 2 sano isla meereysanayeen oo jabiyeen wax walba lumiyeen, maantana waxay luminayaan time kale ay ummadda ka luminayaan. laakiin anigu waxaan u arkaa arrin madhalaysa haddii hanjabaad beeleed lagu meel mariyo arrinkaana natiijada keento aan dhowr waxaan u maleynayaa cawaaqib xumadii Riyaraac inuu ku noqon doonto Somaliland in ka yaraayay Tunisia ay ku gubatay 7 dal kale oo baabeen. Somaliland halkii ay ku baabi'i lahayd noqdadii ay ku baabi'i lahayd in laga shaqeynayaan waayo institution jira oo sharciya oo dastuuriya ayaa la doonayaa si beelaysan in loo dumiyo. boqor Cismaan aw Maxamuud Buurmadow waxaad sheegtay in qaranku ku burburayo haddii Riyaraac gudoominimadiisa la farageliyo oo ama la yiraahdo ka tanaasul in qaranka dhan miyaanu shakhsi ka ahayn isagu oo marka madaxweynihii xisbiyadii arintaas oo dhan xal u arkaan in arintaas ay Somaliland badbaadinayso. maxaad adigu ugu tilmaamaysaa in beeleeryanayaan miyaanay ahayn in la eego nidaam sax ah? Riyaraac ma shakhsi, waa institution jira oo dastuuri weey. waa Faysal Cali Waraabe aan raado xisbigiisa isagu maanta intaanu beel ahaan halkan isku soo tubno doorashadan ma geli karaan xisbina ma hala baabiyo. taas la mid ah musabbix aan raado madaxweynimadiisa dastuuri ma lama aqoonsane ya sariicaha xukuumadda Muuse iska togaan raado waa iyadoo leedo Saleeman Gaal iyo golihiisa guurtidu meesha ka bixiyeen weey ma shakhsi ma. marka waa arrin dastuuriya oo la doonayo ya marka waxay leedahay waxa jirta wax leedahay kelimada xaq yuraado bihil baadil ya dadka la isu soo dhaweeyadaan iyo la isu tanaasuliyo waa kelmad fiican, laakiin nidaam iyo sharci waa inay martaa oo qaanuun martaa. boqor Cismaan aw Maxamuud Buurmadow aynu dhinaca ka soo gudubno haddaynu nimaadno xisbiga talada Somaliland haye kulmiye gudoominimada xisbigaas ayaa hadda deegaanka dadku boqorka u tahay ay doonayaan. dhawaana waxa arinta shaaciyay siyaasiga caanka ee Maxamuud Xaashi Cabdi inuu gudoominimada doonayo. dhanka kale Maxamed Kaahin oo wasiirka arrimaha gudaha isaga laftiisa wararba sheegay inuu doonayo guud ahaan arrimahaas. maxaa kaaga baxay sama jirtaa cid boqor ahaan labada siyaasiyaad adigu dhabarka taabanayso? run ahaantii waxa weeye arrinkaasi waa arrin waan arkay Facebook aan ku arkay caruuro wax kala taageerayo ordayo, laakiin dhaqanka habar jecladu sidaa ma. dhaqanka habar jecladu waa dhaqan adag, dhaqan media iyo hadii ay laba leeyahay in ma yaro meel ku kala taageerana ay wax ku soo saaraan oo hogaamiyaha habar jeclaa ku soo saaraan saama. habar jecel geed bay isla tagtaa. dabadeedna haday noqoto wax reerka u yaalana go'aan baa laga soo saaraa. qabyaalada habar jeclanimada dhexdeeduna ma shaqeyso. beelaha qaarkood ay isu riixriixi karaan liisuma riixriixo, laakiin waxa taala meesha
qolada tan moobeelada hadda wax leedahay hebel waa lagaga shubtay iyo runtii dee annaga waa nala kaga shubtay baashii jeegaantii iyo xidhiidhkii aan wada lahayn waa nala kaga shubtay madaxweynaha waxay isugu kaaya dambeysay iyo beeshiisaba maalintii aanu halkaa balaasa hotel ku soo heshiinay madaxweyne muuse soo saaray aanu halkan isugu nimay green balaasa haddana ku kulannay ballamihii iyo wixii aanu heshiis ahaan ku heshiinay madaxweynaha dib isumaanu arag annagu dib beel ahaan horta isumaanu arag xisbiguna xisbina wuu yahay laakiin xisbiyada say Soomaalidu u dhigan tahay yaa di xisbi waliba beel buu dhabarka ku hayaa oo taageerta oo aan muran ka jirin xisbiyada Soomaaliland wali kama ay gudbin beelihii inaanu kulmiye beel ku taageereynay oo xadaana weey marxaatigii furaya ka kaco laakiin waxa jirta anaga waxay la muuqataa masalada tan maxamed iyo maxamuud xaashi anigu la isku lisayo maaha go'aan habar jeclo maaha tii arrinkii Soomaaliland habar jeclo go'aankeedina ma waxaan u arkaa mas'ala carbeed oo berigi iskuulka ku dhigan jiray oo la oran jiray wax la qidatayn wal qird ya labadii bisadood iyo daayeerkii oo hilibka intuu soo qaybinayay wasladii u dambeysay inta laba waxaan la isku yeeriyay waslad cidi iska haysto weeyaan horta habar jeclana dambas cidla ama kulaalayso anugu labada kacdoonay la isku yeeriyay maxamed iyo maxamuud naaniga way soo kaymid mana kala dhaweysanayo midna si gaar ah u taageeri maayo midna waxba gacanta kuma hayo habar jecla cidii maxsuul ula timaade wax ula timaada siyaasadii hore waa lagu soo kala fuusay waa lagu kala shubtay baabkuna maftuux weeye haddii wadani habar jecla wax kala timaado habar jecla kaasii taageerisa hadday u cid kala timaadana kaasii taageerisa hadday kulmiye kala timaadana kaasii taageerisa labada nin ay gidaarka isku haysta ya waxaan ku kala taageeraa nooma muuqato durbaanadaasna waa durbaano iska ruwaayado waqti waxa weeyaan waa entertainment waqtiga siyaasiyiin aan u arko inay haddii aan laba leeyahay waqti ku dheeraaday oo stresska inay iskaga biinayaan u baan u arkay wax macnaha ku jira ma jiro madaxweynaha ma ka dalbi kartaa in xisbigii la ku wareejiyay deegaanaha anagu cid la bari mayno habar jecel xisbina cid ka bari mayso siyaasadda habar jecel halkaas fadhida miisaankeeduna waan isku tala habar jecel cidii u baahan ee u soo dheeraysa iyada loo soo kala dheeraynaya anagu cid la bari mayno madaxweynaha waxaan u maleeyaa inuu chance ku kalumayaan u arkaa dhawaan madal dhaqan oo aad ka qayb gasheen adiga iyo waliba Suldaan Xasan Suldaan Cabdilaahi hadal uu halka ka jeediyay oo deegaankiina uu u duceeyay waad ka diiday waxaana si cad u tiri in deegaanku aanu hadda duca u baahnayn arinta kale ee aad doonayseen taasiisan bal bulshada u sheeg arinta abatin ama xumaanu isagu leeyahay ama wax kale oo dareena kamaan qabin meesha aad baan waliba Suldaan Xasan isugu dhownahay anaga waxaan qabaa madaxtooyada aniga iyo isaga maalin baa noogu wada dambeysay isagaba lagamana jecel lagamana soo dhaweeyo laakiin waxaan tusayay dareenkii beelaysnaa wax lagu weydiinayay dareenkii beelaysnaa haddii aan labalay ku xamaasadaysan ku shaqeynayay codka nagaga doonayay meesha inaan maanta duca u baahnaysna aan waxba noo sidin isaga laftiisu inaan gacanta waxba ku hayn baan muujinay laakiin se kamaan cabanay Suldaan Xasan saaxiib baan nahay waan qeyb badan isaga laftiisa aan batala la weydiin laakiin waxa jirtay oo waxa weeyaan deegaan ahaan iyo dal ahaan taageeradii madaxweynaha iyo ragiisa aanu siinay ya inaanan ka faa'iidin oo khayraadkii iyo wixii soo baxay mashaariicdii soo baxaysay mashaariicda dalka hadda gacanta lagu wada hayo oo la arkayo si u socdaan wax loo arko cabatin baa ka jiray taawan muujinay anigu oo aan muujinay dadka si adiga dabcan kaaga hadlaya ama deegaankaaga ama dad kale waxay yiraahdaan inaan madaxweynaha taageerno boqorka ayaa u sababaha oo taageero oran jiray oo horumar baa dalku galaya arrimo badan hadana tii lama hayaba la yiraahaa labada sano adiga maxaa ku baxay ma diidan anigu inaan ragii ugu horeeyay ee madaxweyne Muuse Biixi taageeray haddana mucaarad ku mihi iskumana dhowino dadka isku dhoway albaabkiisa gala anigu mihi mucaaradada aanu hayo oo
aan leeyahay dadka lagu kiciyaan uma arkay waxaan arkaa in chance la siiyaan waliba qaba in lala shaqeeyana waan qaba laakiin markaan anagu beel ahaan taageeradaan Musaf Biixi taageernay kamaanu faa'iidana waan ku khasaaray waxaad ka soo qaadaa doorashadu marka la tixgelinayo nin walba dib wuxuu ilaashadaa dadkiisii taageerayaashiisii wax taray ayuu ilaaliyaa madaxweyne Musaf Biixi labada degme ee ugu taageerada mid waa Garadag iyo Ceelafweyn waa B wadegmooyinka qadiimka horumarkii uu gelisay dawladdiisu ama 2% hala yado ama GBL jaleedo ilaa tii shalay u dambeysay una qabateen rasmi ah lagu haya kamanay faa'iidin beelahan wax kale iska daayay dadkii shacbiga aan waayeelka u ahayn ee Soomaaliland ee meheradaha ka shaqeynaya dawladdu meelaha ilaa dhaqaalaha ama u badnaa ama meelaha kulli waa laga xaadiyay hadda kuwii private-ka haba qiir ku jira inay si fadhiyaan oo waxaan filayaa wax dadkaba ka shaqeysta laba shirkadood oo madax badan midna tahay inba deeradda falay dubay midna wakiil buu yahay midna al-Carabiya cidhiidhi buu ku hayaa maamulaha madaarku ama maareeyaha madaarka jooga cidhiidhi buu ku hayaa in culays badanna wuxuu ku hayaa inuu ka saaro oo runtii anigu ma garan karayo meelu ballanta uu ka haysto marka waxaad ba iska daysay wax weeyaan shaqaalihii caadiga ah ayaan ka faa'iidin xisbi ahaan baanan hadii aan la leeyahay nidaamkii taladii waxba loola lahayn deegaankii baan dawladdu waxba ku celin soo doortay oo godoboobay ee u shaqeeyay baan waxba ku hayn marka anagu waxaan leenahay madaxweynuhu ha jiro ha joogo ha noolaado shaqadiisana ha qabsado laakiin waxaanu dambe ugu galaano ma muuqato hadda dhinaca kale boqorku waxa uu ka hadlay soo dhaweyntii maalintii shalay tahay loo sameeyay gudoomiyaha xisbiga UCID Engineer Faysal Cali Waraabe mudaharaad reer dhigaya bay ahayd ma ahayn mid xisbi ma ahayn wad arkaysayo gudoomiyuhu markuu dibadda jiray wuxuu ka kaambeyn gareynayay ardaagiis oo lahaa hadii aan la leeyahay la soo dhaweeyay halay heeliyo waa la xidhaya in Cabdiqaadir baa la soo fariisiyay wuxuu saddex madaxweynaha dalka ka jira buu madaxweyne ma xidho reer ma xidho ya taas ma durbaanka loo tumay qabyaaladu ma durbaanka loo tumay ma ahayn wax xisbiyeysan ma ahayn baan u arkay aan ku soo dhaweynta salata mid ka muuqato baan u arkay oo aan dimuqraadiyadii iyo wanaagga in ku soconay ahayn beelaysan baan u arkay wax macnaa ila ma lahayn way boqor Cismaan Maxamuud Buurmadow dhinaca geelana aqoon dheer ayaad u leedahay maalmaha kan waad ogtahay waxa social media meel badan ka socdo laga sii deynaya geela lagu gumaadayo Australia arintaas soo aragta geelan la leeynayo Australia iyagu ma ku saxayeen laayaan inagu inuu taageerno si indhalaanaynu u taageeray waan arkay qolo yar oo caanaleeyo halkan urur yar oo maal dhaweedna madaxweynuhuna booqan jiray oo isaguna ka mid yahay madaxweyne laftiisu qoladan caanaleedu ku jiray ayaan dhaweyd waxay halkan ka dhaleecaynayay geela Australia lagu leeynayo waxaan qabaa inaga geela Australia horta in la laayo dambe inuu ku jirto marka hore waa geel weyla oo aan keenno kala lahayn oo rabaayad lahayn oo aan la manaafacaadsan oo deegaanka iyo dalkooda dhibaato ku haya kaneecada in cunaysaynu iska buufinayna iyaga uga mid wana horta marka hore wata labaad inaga dambe inuu ku jirto hilibkiisa haddii caalamka ay ka faa'iideysanayeen suuqyadan Carabeed iyo dhulkan iyo caalamkan hilibka geela lagu cuno loo iibgeyn lahaa keena meesha ka bixi lahaa marka inaga dani waxayna ku jirtaa geelooda in la laayo in la dhimo iyaga dib buu ku hayaa waa weyl meel kasta galiya uu kharaabinaya uu dhibaya deegaankii baadib uu ka dhibaya dani ugu ma jirto nabiga doofaarku hadduu bato oo meel walba jiro inaynu leyno waxba ina kuma aha waa maslaxadu daayarka waad arkay doofaarka baalkan eeydi markay magaalada ku badato aan cid dhaqayn xanaanayn eeydu xaqooda qiimo weyn bay ka leedahay birgi dhaweeyay la leeynayay boorama yar lagu laayay caalamka dhan baa gariiray miinis isku dhaqan iyo culture iyo curfi baynaan ahayn qaabka loo kala manaafacadsado ba karba eeygu wax laga yaabo inuu askari yahay inuu darajo leeyahay inuu ka xuquuq badan in xoolaha loo dardaarmo ee dhaxlo isku dabeecad maniin ala kulli xaal أنا سود وين أجل أستراليا لايو وحنا وقبا Somaliland iyo Soomaaliya iyo dawladaha Carabaha hilibka iyo competition ku ka dhaxeeyo in naga la laayay inoo faa'iido badan
haddii ay ka faa'iidaysanayeen suuqaano hilibka intay storage gareeyaan ay iib geyn lahaayeen dhib baa ku jirta laakiin qolaha halkan oo aan wax nacfila lahayn oo urur yar oo halkan oo maalin dhaweyd madaxweynuhu taageerayay oo aan macno badan u garanayn competition wuxuu ku leeyahay ya anagu hadda waxaan ka fikiraynaa hadda caanihinu iib bay leeyihiin suuqa caalamiga inta la boodhar gareeyo in caalamka loo iibgeeyo تجيل أستراليا هذه عانيس اللي يبقى أما هيلبكيس اللي يبقى وترتم بين اللي قليه باتري كوسار محمود تلفيشة كاسهل هرقيسة